diyaaradaha nooca qumaatiga u kaca ciidanka cirka ee duqeymaha ka qayb qaata gurxanka iyo gaardaka ciyaarka cod libaaxlayaasha arka caraysan la moodo ee xoogga dalka jaanta iyo jiibta sida ashqaraar kale la iskula helayo ee nabad ilaaliyaasha booliiska iyo faqlaha ay soo bandhigeen ciidanka asluubta Soomaaliyeed ayaa mar qura bedelay dareenkii goobjoogayaasha munaasabadda munaasabadda dabaaldegga 65 jirsiga gobonimada dalkeena oo sanadkan loo maamuusay hanaan u qalma qiimaha maalintan qaran waxa ay ku bilaabatay ubax dhigga taalada daljirka Daasoon halkaasi oo madaxweynaha jamhuuriyadda oo ay weheliyaan gabdho ka tirsan ciidanka booliiska ay dhigeen ubax sharafeed lagu xasuusanayo halyeeyadii nafta u huray soo dhicinta dheefta xornimo ee aynu maanta haysano tiro ka mid ah diyaaradaha dagaalka ciidanka cirka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa si weyn uga qayb qaatay munaasabadda 1 Luulyo ee sanadkan iyaga oo dul heehaabaya degmooyinka caasimadda isla markaana shacabka la wadaagaya fariimo ka turjumaya qiimaha maalintan iyo ilaalinta dawladnimada xoogaysanaysa ee dalkeena ciidanka ilaalada xeebaha ee booliiska Soomaaliya iyo ciidanka badda xoogga dalka Soomaaliyeed oo ku qalabeysan gaadiidkooda kala duwan ayaa si weyn uga dhex muuqday munaasabadda kuwaasi oo sanadihii dambe ay dawladdu gelisay dib u dhiskooda dadaal dheeri ah munaasabadda 1 Luulyo oo ku aastaysan 65 guurada xorriyadda gobolada Koofureed iyo midowgii gobolada Waqooyi iyo Koonfur waxaa loo qabtaa meerta maamuuseed sanadle ah oo lagu muujiyo awoodda dawladnimadeena iyo sida dadka Soomaaliyeed aysan marnaba u hilmaamin halgankii awoowayaashood ee la soo dagaalamay sancadaanihii reer galbeedka iyo dhibaatooyinkii kala duwanaa ee ay u soo geysteen dadkeena Soomaaliyeed sanadkan waxaa loo maamuusay munaasabadda 1 Luulyo si ka duwan dhammaanba sanadihii la soo dhaafay Shucayb Maxamed Cali warbaahinta qaranka madaxtooyada Soomaaliya